munaasabadani oo ka qabsoontay hoteelka Damal ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd cashar sharaf ay shirkadda DAHABSHIIL Group oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn dhulalka Soomaalidu ay ku dhiirigelinaysay isla markaasina ku maamuusaysay macaamiisha kala duwan iyo ganacsatada waaweyn ee sida gaarka ugu xidhan adeegyada kala duwan ee shirkadda DAHABSHIIL Group. ugu horreynna waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadda DAHABSHIIL Group Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale isagoo tilmaamay in kulankan yahay mid isxog waraysi ah oo u dhaxeeya DAHABSHIIL iyo macaamiisha ku xidhan. macaamiishu aan mar walba aan soo dhaweysano taladooda aan maqallo horumarka aan sameynayno mar walba aan qayb ka siino shaqaalaha shirkadda ama DAHABSHIIL Bank ku shaqeeya waliba kuwa macaamiisha sida gaarka ugu adeegana in iyaga laftoodu ay sii dhiirigelino oo qofku sidoo macaamiisha ugu adeego aanu awood ku siino oo sabahan xafladda u sameynaa kamid tahay awood shaqaalaha macaamiisha u adeega laftooda aanu xusno. waxaan filayaa in ay oo markii ugu horeysay ay kamid tahay in week dhan oo usbuuc dhan macaamiisha la siiyo oo marka macaamiil la siinay waxa weeyaan in afkaartooda la dhageysto maalgelin meelihii loo baahan yahay lafteeda iyo maartay meelaha jecel yihiin macaamiishu in culayska la sii saaro annagoo eegayna rag iyo dumarba dhalinyaro waayeel nin baa mushtariga ku cusub mid culayska waxaan u doonayaa ogaataan inaan garabkiina taaganahay inaan maalgelinta waddankan galinayno inaan sii badinayno. geestooda mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda DAHABSHIIL macaamiisha ku xidhan shirkadda iyo ganacsatadii kala duwanaa ee madashani lagu maamuusay ayaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay. waxaan waddanka la imi $60 anigoo berbere ka soo degay oo Hargeysana xidhan tahay madaarkeedu maantana warshado iyo kambriyaal baan leeyahay ilaahay baa mahadaan iyo DAHABSHIIL way inuu wada dhiirigeliyeen rag iyo dumarba. runtii investment bangigu u sameeyo ayaan anagu nahay Nuuruddin Schools. iskuulka Nuuruddin hablahu dhigtaan dhulka iskuulku ka dhisan yahay waa dhul weyn oo shacabka ku yaala. dabadeedna Xaaji Maxamed Siciid baan isagoo Ingiriiska jooga telefoon u diray intuu hamiga inaan iskuulka hablaha dhisnaa intuu igu soo dhacay. xaajiga waxaan ku yiri xaaji waxaan doonayaa hawshaas damiin almaalkii intaan xaajiga baan ku yiri xaaji damiin almaal anigu ma hayo مليون يسيادة يقدمينا نيه واحد يلي سدبل يل حاج محمد سعيد السجع أيا قري قدمين المال كي يقال نقضي ورقتي إنه تعيدا وان هيا كان أحسن طلع يو بانكو ويسبهين رنتينا انت DAHABSHIIL أنا لا شقين إني وحنفلها أذيك ووقف طومضة يسيرفيس وهيابا مدام aad ugu qanacsana inuu yahay talooyinka aan kulli baan u idin soo jeedin la wax ka koowa oo baahida baan loo qabaana ay ugu badan tahay ugu mudan xiriir dibadeed inay noo sameeyaan oo baanka laga furan karo elsiyada si looga nasto lacagtan tuurta lagu qaadanayo ee laga qabanayo dibadaha loogu sarfayo China laga qabanayo India laga qabanayo Turkiga laga qabanayo meesha wax ka keenay laga qabanayo riskiga ah sayidwelsiyeedii inuu halkeen joognaa inuu ka furano. waa Idris Persia telefishinka Universal Hargeysa.